Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay shirka amniga caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb oo ay ka qayb galeen dhammaan hay'adaha amniga heer federaal ee lagu wareejiyay amniga magaalada. Shirka ayaa looga hadlay qorshaha sugidda amniga caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb, diyaar garowga sugidda amniga shirka dib u heshiisiinta Galmudug, amniga garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb iyo dardargelinta qorshaha xoreynta deegaanada Galmudug ee argagixisadu kaga sugan yihiin ay ku dhibaateynayaan shacabkeena. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa faray dhammaan hay'adaha ammaanka ee gacanta ku haya sugidda amniga caasimadda Galmudug sida ugu habboon ay uga soo baxaan mas'uuliyadda weyn ee loo dhiibay si ay guul ugu dhamaato qorshaha lagu dhisayo hay'adaha dowlad goboleedka Galmudug oo loo dhan yahay. kulligiin ama boolis ahaw ama nabad sugid ahaw ama military ahaw waxaad rabtaa inaad dalkaada difaacdo. idinka dowlad goboleedka aad dadkiisa matalaysaan ciidanna u ahaadeen ayaa meelo badan oo ka mid ah cadow haysta. oo macnaheedu waxay tahay wiilasha iyo gabdhaha meelahaas ku koraya mustaqbalkooda inuu mustaqbal fiican oo iftiimaya noqdo idinkaa ka mas'uul. saacad idinkama lumi karta marka ma iskhilaafi kartaan, dulqaad la'aan ma ahaan kartaan, dantiina keliya kama fikiri kartaan. go'aanka aad gaartaan wuxuu saameynayaa dad walaalihiina. waxaan ku faraxsanahay caawa inaan isu nimid shirkan idinkala soo qayb galay. waxaan rabnaa dowladda federaalkuna inay maamulkan ka barato wax walba ay ka baran karto, maamulkuna uu ka barto dowladda federaal. waxaan rabnaa inaan usii dhammaystirno qorshe dowladda laga dhisi goboleedka halkan laga dhisi doono si marka loo aasa dhidibada aanay kow uga bilaabin balse aan u hayno qorshihii amniga magaalada, gobolka, degmooyinka, tuulooyinka, qorshihii dib u xoreynta iyo daryeelka ciidanka. inaan shaqada dedejinno waa muhiim. tan labaad waxaa ku guulaysateen ama dowladdiina federaalka iyo dowlad maamulka Galmudug ay ku guulaysteen in la midoobo, la isu yimaado, la wada shaqeeyo, dadka loo adeego. dadka si aan u kasbanno marka waa inaan leenahay waxaan ku kasbanno. waxa ugu fiican oo marka aan samayn karno maadaama aan ciidan tihiin waxay tahay inaan dhulka dib u xoreyno sida ugu dhaqsaaqo. haddii awal la kala maqnaa oo cudurdaarku ahaa in la kala maqnaa, cudurdaarkaas isaga ahaa wuu soo afjarmay, waa la isu yimid. ciidanku waxay shacabka uga duwan yihiin waa nidaamka iyo kala dambeynta, amniga dowlad goboleedka, xasiloonida, horumarka, dib u xoreynta, ka ilaalinta cadow gudo iyo mid dabadeed idinkaa ka mas'uula. ilaahay idinla garab galo shaqadiina. si ay ugu guuleystaan waajibaadka culus ee saaran ayuu Ra'iisul Wasaare Khayre kula dardaarmay inay ilaaliyaan wadajirkooda si sare loogu qaado kalsoonida bulshada ay ku qabaan hay'adaha ammaanka. ciidamadiina halkan jooga kulligiin waxaad tihiin ciidamada federaalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan ku soo celiyo mar labaad ma kala lehidina ciidamo hore iyo ciidamo dambe. kulligiin hadda waxaad tihiin ciidamada federaalka Soomaaliyeed oo isgarab fadhiya, iska garab dagaalamaya, is ilaalinaya, shaaha iyo biyaha kala qaybsanaya, iska fiirinaya cadowga idinkoo isla jira, nafta is siinaya. marka horta waa inaan aqbalnaa inaad tihiin ciidan Soomaaliyeed kulligiin. midda labaad idinkoo hadda isu yimid marka aan fiirino shaqadan hortaal baaxadda ay leedahay waxay tusaale ka tahay sida aadan u kala maarmina. innakoo isu nimid oo ciidankeenni mid uu noqday ayaa haddana baahida shaqo oo horteenna taalla baaxadda ay la eg tahay marka aan fiirino
ayaa waxaa muuqanaysa saacado badan iyo maalmo badan iyo habeeno badan inay khasab tahay inaan soo jeedno si aan uga adkaano kuwa raba inay dhibaateeyaan gobolka haddii markii shaki uu nooga jiray muhiimadda midnimada ay leedahay shirkaana daliil u ah hay-adaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegay sugidda amniga caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb oo martigelinaysa shirka dib u heshiisiinta ka qayb ka qorshaha lagu dhisayo Galmudug dhammaystiran oo loo dhan yahay Nasra Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Dhuusamareeb